بسم الله الرحمن الرحيم داوديال taariikhda maanta waa 17 bishii tobnaad waa maalin Isniin ah qodobada ugu waaweyn ee maanta waxaa ka mid ah magaalada Kiev ee dalka Ukraine oo saaka waa bari ku waabarisatay diyaaradaha droonka ee Ruushku sameeyay oo noocooda la yiraahdo Kamikaze diyaaradahaas oo la arkayay wasiirka arrimaha gudaha iyo ciidanka la socday ay xabadeynayaan waxaana halka ka muuqata gantaaladii Jarmalku siiyay wigii la soo dhaafay ka hortagay diyaaradaha iyo gantaaladaba inay waxba tirin waayeen daawadayaal caasimadda Kiev bartamaheeda ayaa la duqeynaya oo ololeysa saaka waa barigii ayaa waxaa soo weeraray diyaaradaha droonka ee Ruushku sameeyay nooca Iranian sameeyay oo isqarxiya oo la yiraahdo Shaheed arrinku farakama qodno daawadayaal madaxweynihii dalkaas waxaa la sheegay in 7 bir la yahay sida sheegayaan saxaafadda dhimashada waxay gaaraysaa ilaa 3 qof sida hadda wararka sheegayaan ku taala xuduudda dalka Ukraine iyo Russia halkaas oo shalay lagu dilay 11 ciidamadii Ruushku tababarayay dhawaan ku baaqanay Putin inay gantaal ku soo rideen Ukraine halkaas ay 11 ku dileen arrinkaas shalay toole waa loo jawaabay wasiirka gaashaanigu wuxuu sheegay in xarumo badan ay burburiyeen isla shalay ilaa xalay arrintan waxay daba socotaa arrinkii bridge-kii magaalada Crimea ay qarxiyeen Ukrainiintu sidii bridge-ka loo qarxiyay daawadayaal caasimadda Ukraine iyo gobolada kale waxa ku hoobanaya madaafiicda daawadayaal warka ku xiga waxaad ku maqli doontaan mudaharado waaweyn oo looga soo horjeedo dowladihii reer galbeedka sida Faransiiska iyo Talyaaniga iyo dowladihii kale oo reer galbeedka shacabkooda waxay dalbanayaan in maaragtay la joojiyo dagaalka in maciishada maaragtay la raqiisiyo warka xiga